بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما انتي مسؤول هذا أوضيع الملك استودع فادو كان نقلا سعوتان سودو هذا عاور واحد دوني قور لور قضب كهلا روحانتي أو ده الهود لو قلادو ده واحد حقيقي كي واحد جرا لقى هلا روحانتي أنا هاي إن ده واحد روحانتي لو دول قادن كرو اللي يجن كرين سودو هذا لما انتي ملك استودع شوكتان بقى شرقري قد بيه ستوصل لو هذا اللي أو روحانتي حقيقة تاريخنا ولا شيء هنا يا روحانتي تاريخ بدون ذي هاي إد ولي تاريخ بلا هاي تاريخ ذي وحول ولا شيء هنا يا لما كلا قبنا يو محيا يو محيس الله يو محين كان يو والدنيا ذن أن كنا الله هاي عدان يوم مذوب وتدواس علينا الدون كوالا يسود الله دحير iyo waxna adduunyada wax ka shaqeeya ma jiraan wax lagu kala socdaa waxa weeye interest waxa la yiraahdo interest oo afka qalaad interest lagu dhaho interest waa maxay maxaan dan leeyahay weey dantaydu maxay tahay weey maxaan halkan wax ka faa'iiday interest waa faa'iido weey faa'iido marka qodobada marka laga yimaado iyo qodobo kale oo aad u fara badan oo ku duugan ruuxantii barnaamijkan haddii Allah uu dalo ogolaado oo si toos ah uga baxaya meel kasta ay ku nool yihiin caalamka cid kastoo daawanaysa waxa leenahay soo dhawaada ruuxantii jawaabo waafiye baan halka ka bixinaya ruuxantii jawaabo waafiye oo xaqiiqa baan halka ka bixinaya ruuxantii oo si toos ah cid walba u dhageysanayso ruuxantii horta gadabuursi waa qoomiyad weeye ruuxantii gadabuursi waa qoomiyad weeye waa qoomiyad ilaahay dee ka dhaliyey Ethiopia iyo Djibouti iyo dhulkan la yiraahdo gobolada waqooyi ruuxantii iyo xeebaha dadka iskale waa gadabuursi waa dad qoomiyad weeye ruuxantii oo ilaahay aad u fara badiyey cilmina siiyey fara badan dhulkan iyo meel walba geeska Afrika kaga nool ruuxantii caalamka qaarkoodna ay jaamacadaha ugu sarreeya caalamka ay dhigaan gadabuursi ruuxantii anigu dee shakhsi baan ka ahayo de haddii ba xuquuqda gadabuursiga arrimahayga aan u hadlayo in aniga gadabuursi laysoo ataago oo laysoo caayo oo waxaan kuli laysoo jaatifeeyo anigoo ka hadlaya xuquuqda gadabuursi hadday xeeb tahay iyo hadday beri tahay iyo hadday xuquuq tahay iyo hadday taariikh tahay arrimahaasaan doonayaa inaan caawo ka yar hadla ruuxantii dadka ii soo caayana aan waan aqaanaa ee hadhiyo habeen miidiyaha igu jiray soo caaya rag iyo dumar bale naaga waaweyn oo la qabo oo qaarkood la furay oo caruuro leh iyo qaar nolosha ka dhacay reerahay yihiin la yaqaano ayaa hadhiyo habeen naabil cali waxaan kuuri way igu tasbiixsadaanba war naabil cali ha ku tasbiixsanee anigu xaqiiqada iyo waaqaca jirun baan ka hadlaaye reerna ma caayo cidna ma caayo laakiin habeenkan caawa weysada la isku soo biyeystay habeenkan caawa weysada la isku soo biyeystay macnaheedu waxa weeye si toos ah loo wada hadlayaa ruuxantii inama yaryar oo caruur oo ruuxantii dee nolosha ka dhacay oo qaarkoodna ay joogaan Jarmalka qaarkoodna ay joogaan meesha la yiraahdo Faransiiska inay yaro Faransiiska joogo cid alliga cid ummadda Soomaaliyeed u hambeeyey aanay jirin oo qabiilada ummadda Soomaaliyeed caaya oo waxaan ku habar jecel sheegta inay yaro alliga dee ma garanayaba oo waliba ruuxantii isaga xaaskiisii iyo gabadhiisii dee laga qaaday oo laga xoogay dee sida wararkan ku helayaano ruuxantii isaga waa xaaskii uu qabay oo carruurta uu ka dhalay baa nin ka qaaday Faransiisku ku nool yahay Injineer Amiir baa la yidhaa yarkeeda Injineer Amiir la yidhaa waxba yeelan isku meermeeraysanba Injineer Amiir iyo waxba la baxay Injineer Amiir macnaha injineerku uu fara badan yahay waa injineerka wadooyinka injineerka waxa weeye electroniga waa injineerka guryaha waa jaamacadaha looga soo baxaa waxa la yidhaa engineering civil engineering baa la yidhaa civil engineering baa la yidhaa
civil engineering civil electricity dee engineerku aad buu fara badan yahay faacyo badan buu leeyahay laakiin engineer boqor waxaan awooyaashii buu ka dhaxlay waa wax dhaqan uu leeyahay moogti markaad aad hebel iyo maxay engineer iyo waxaad ka sheeganayso awooyaashii buu ka dhaxlay marka inankan yar ee faransiiska ku nool anigu miidiyuhu iga soo caayay isagii naaga fara badan oo aan aqaano oon heblaayo dumarkaana dib baan u dhiganaya ruuxaantii oo dumarka anigu dhaqan uma leeyahay inaan dumarka miidiya uga jawaabo waayo dumarku waa waxa weeye waa hooyo waa walaasha waa inantiini waa xaas weeye way qaldami karaan dumarku waa feer qalloocda weeye ruuxaantii raggunbay toosin karaa gabadhu hadday miidiyaad sheegaysaa meel walba ay kaa caydo waxa ay doontay kugu sheegto weligaa allaha looma jawaabo waa ceeb weeye gabdhaha looma jawaabo laakiin inaan kaa yar baan anugu laba kelmadood odhanayaa injineer markuu leeyahay injineerku faac buu leeyahay iyo waxbarasho jaamacadaha looga baxaa injineerka teknolojiyadda ayaa imika kusoo biiray casrigan aynu joogno ruuxaantii civil engineering baa kusoo biiray waxa kusoo biiray engineering kale electric maxay kale kii guryaha kii maxayga kii diyaaradaha kii engineering waa cilmiga qofka intelligent-kii ee adduunyada maanta aynu ku nool uu baran karo qof wax engineer inaad ka sheegato waa taariikh xumo muxuu ka dhaxlay haddaba awowgii buu ka dhaxlay magaciisa afaran baan aqaanaa anuu ninka yar awowgii buu ka dhaxlay sababtuu uga dhaxlay awowgii baan nii sheegay haddaba wuxuu awowgii ka dhaxlay inankan yari wuxuu sheegtaa reeraha habar jecluu sheegtaa ruuxaantii wuxuu dhahaa anagoo habar jeclaa haddana uu ka boodaayo wuxuu dhahaa anagoo jeegaana haddana uu ka boodaayo wuxuu dhahaa anagoo isaaqa gadabuursoocaya aniga dartaybuu gadabuursoocaya haddoo fiirso aniga dartaybuu gadabuursoocaya waa beeshaa dhan ee gadabuursiya ee sheekh iyo shariif leh ayuu ka soo daadegay ayuun shakhsiyadayda caya waan ka aamusay umaan jawaabin in badan ruuxaantii laakiin qofku markuu isru leeyahay meesha la yidhaaho taariikhdayna caawa u bayaaminanaa oo inuu dhegeystaa waa very important weeye in badan baa loo dulqaatay mugti dadkan waxaa la yidhi qaniyin baa qaniye kaa goysa may soomaalidu tiradaa qaniyo ayaa qaniye kaa goysa inan kaa yar engineering iyo maxayga haya gabadhiisii xaaska u ahayd ee carruurta u dhashay nin hawiyaa baa ka qaaday ruuxaanti sida laga sheegaya aniga taariikhdan ku hayo ee laysoo warramayo nin hawiyaa baa ka qaaday waa sababta uu muqdisho markuu qarax ka dhaco uu leeyahy waan ku faraxsanay subxaanaka yaa cadiim waar muqdisho dad soomaaliyeed baa ku nool waar muqdisho dad ummad soomaaliyeed baa ku nool hawiyena dusha iskuma sito hawiye oo dad soomaaliyeed weeye ruuxaantii waa ummad soomaaliyeed waa ummad dhibaato ku jirta weeye waa gobolka banaadir weeye waa ummad soomaaliyeed weeye hadduu nin shaksiya oo hawiye uu gabadhaadii kaa qaaday inaad hawiye u caydo waa inagubeednimo weeye ruuxaantii injineeriyo waxbaad sheegtaa faransiiska iyo waxbaan baariis agteedaan ku noolay baariis baan joogaa baad tirahdaa okay injineerkana dee waxaa looga soo baxa jaamacado waxa loo diyaariyaa intaasoo waxa loo diyaariyaa 5 sano 6 sano 7 sano ayaa loo diyaariyaa injineerku waa taariikhda marka la eego injineerinka dadka wax baranaya waa qofka maskaxda badan ba injineerinka diyaariya ruuxaantii adigu haddaba awowga ayaan soo baadhay anu awowgii waa la yaqaanaa awowgii hebel waa abtirsan karaa anu miidiyahan ka abtirsadaa waa la yaqaanaa ibnu sheekh baan ahay waa la yaqaanaa laakiin anu sheekh ma yihi ruuxaantii ku faani maayo awowayaashay iyo taariikhdooda iyo sheekhnimadooda iyo raganimadii iyo culimmadu ilaahay baray ummadda soomaaliyeed oo dhan baa taqaanaa ruuxaantii waa la yaqaanaa hebel ibnu sheekh bal adiga awowgaagays labaad injineer maxay baad sheeganaysaa amiir maxamed kii kale bal uta kii kale yuuha waa 1900 iyo dhowr iyo kontonkii meelaha 1900 waxay ahayd waa taariikh dhow bay ahayd 1900 koob iyo kontonkii bay ahayd intaan doorashadii la gelin waqooyiga intaan doorashada waqooyiga waxa la abaabulay oo la galay waxay ahayd 1900 iyo 7 kontonkii markii galbeedkana waxa la galay
لحية كتن شني كتك لحية كتكي سومالي قلبين وقويجن إنه دقني إنه حلقة لكوس قال بقول حدا كل لكن أبال كوح ودعي كوس قال بقول شني كتكي حتى بقى ديك أوجا قل بعض بنكوش شيء عبرت على هاي با يساق بان هاي با هل كان دقن هاي با إلا قبوي ودتك ومد الصومالية نصبا أي دافو يضع عيدي بيلها قبوي ونصبا أيجين أي عيدي هوية عيدي وقاعدين بعد عيدي ود مقع بيلها الشرف طلعي يساقوا عيدي وليبا ككالي مقع واحد ودنا هبرتش على كو عيدي هبرتش على هتيكو قبسون ويدي دي قنية كاقويسة أي صومالي طلع هبرتش على حنو شيء يا طبعا هبرتش على تاريخني نو توصل دقيست anigu muddo 2 bilooda yarkaa yar uu soo caayay isaga habla kalaba naagaha kale ano naagaha dumarka u jawaab maayo dumarkaasi warankoogu anu iba kari maayo ruuxantii waa dumar weeyi dib ma arka hay soo caayaan dumarku waa iska caadi laakiin kan yar awoogiisii labaad markuu abtirsado uu yiraaho hebel waa awoogiisa labaad weeyi meesha la yiraahdo gar adag maxay ku soo baxday gar adag قرتي أتكيد معك صباح إلا تاريخ بلو باهين هذا أنا أبوي قلبات ولا يقانا أنا وين هبل باناي وان أبتر سنكرا ليبان شيخ عبد الله شيخ عبد السلام شيخ علي جوهر شيخ بقرة شيخ ورسمة لحبان وأبتر صدا شيخ من بحور عبد الله أباناي مركز قد بورس الله يراهنا ولا يقانا بل أديكو مركز أبتر سطو إجنير بات قبل عباسا أول كده إجنير كبرت إجنير كيوها مكي ودوينكا مكي عركة دوليبا مكي وحن كوري إلكترونيكا ده إلا بقول إجنيرن بان شيئا كرنا نقبون كو قران كرنا فيسبوك أذيري هذا با هابرتش إعلانا واحد كتالا فتادت كتالا والله وبالله وطالله ندر بان كماري أمت الصومالية دون مغلساي أووغي يريركو يسوغو تشوفدو شيغاني هابرتش عليه هوسي والله وبالله ريركو يسوغو شيغانيو يا أووغي وحو دالي أووغي با كترا بدان والله اسكو ميل لما يستاي كرنو حتى اسكو ديغان اسكو محي اسكو كرامو اسكو مغع اسكو شرف ميل لما يستاي كرنو لكن وجواب يا عاو وكفر سويدي غنية كاقويس أووغا هادا با أديغا وحو ها أووغا جي لباد وحو ها نكي قر أدق لغو مهريي بوها لغو مهريي ninkii gar adag lagu mehersaday buu ahaa adigoo taariikhda leh oo awowga gar adag lagu mehersaday oo nin dhulbahantii mehersaday ilaahay baan kugu dhaarshay oo gar adag la garanayo taariikhday ku timiday oo adiga awowga ahaa oo dhulbahanta mehersaday ilaahay baan kugu dhaarshay seed ummadda Soomaaliyeed oo aflagaadeen kartaa oo u caayay kartaa waa ajiib wey wax la yaabo wallahi ده هرت نيكي فيسبوك سميه إن أضم هاد نقضه يهودي جاها يا very important وإن أضم هاد نقضه نيكي فيسبوك سميه ويا ذر أنا أضم هاد نقضه وين نيكي فيسبوك سميه إسكو كان كيناي إسكو تاريخ منهن إسكو هيستوري منهن أوجا أذيجا نندل بهان تابا مهر صدي كر أذك بينك وصباح ذي كر أذك ولبا habarch caloodar ma ahayn jufadaada ahayd ijneeramid yarka la yiraahdo sheegaya in hebel waa awowgaagii labaad weey awowgaagii labaad markay dhulbahanta mehersadeen ee gartii la qaadi kari waayay in markay dhulbahanta la yiri garada ee arankii ummadda Soomaaliyeed isku tagtay ee ummadda la yiri balaabal deena ragii la guursan jiray marka inuu aniga ila kaftamo ila hadlo waa inaad u mahadnaqdo miidiyaha ninkii sameeyay ee yahuudiga ahaa ee Facebook sameeyay ruuxanti inaad ummadda Soomaaliyeed caydood maalin hawiye caydood maalin isaaq qaarkii caydood maalin gada buursi ku galgalato dad taariikh xumo ku gutay sababta hawiye caydan waan soo ogaaday anu nin hawiye aba gabadhaadi ka qaaday kala baxay guursaday Yurub ku nool yahay halkaas aan ku rafaasan tahay Paris inaan ku jawaabo taariikh inaan ku sii fogaada ma haba waa nin awowgii la guursaday oo gar adag lagu guursaday kaftanba kuma furna kaftan ku furan maba jiro ummadda Soomaaliyeed ruuxanti anu haddaan qoyskeyga kala hadlo ibnu sheekh baan ayanu
ummadda Soomaaliyeedna way taqaanaadeen kaftan ku furan ma jiro adiga hebel awowgaagii labaad taariikhda wuxuu ku soo baxay ninkii gar adag lagu guursaday buu ahaa haddii habar jeclo noqotana waa la yaqaanaa waa afar reer oo reer Sheekh Saxaaq oo isku tagay habar jeclada lagu sheegayo futadaad kaga taala futada habar jeclo wallaahi wabillahi watallahi haddaad abtirsato afar reer Sheekh Saxaaq isku tagay ila habar jeclo maaha reero wada dhashay waa afar reer isku tagayo yiri hebel shaqay waa la garanayaa afar reer Sheekh Saxaaq habar jeclo isku tagay futadaad kaga taala habar jeclana futada markaan kulay wax kala maaha shufayada yar ugu hoose ugu laangaabsan baad kaga taala adoo noocaasa marka anigu inaad ii soo jawaabto nin Bahabar Cabdallah oo laandheera oo Gadabursi dhexdiisana la yaqaano oo ummadda Soomaaliyeed wuxuu ka galeen la yaqaano oo waxaan ahay la yaqaano waa karaamo dar weey horta waa ceeb in badan ma ka aamusan ruuxanti adiga awowgaagu haa aniga awowgii weligii lama guursan lama meherin ruma ku sheegayna adiga awowgaagu haa kii lagu guursaday meesha la yiraahdo gar adag in hebel engineer baa la baxday engineerna meel aqoon ku baratay ma jirto ruma ku sheegaya qaniya ka goysa media ii soo gashay anigu dumarkii media hadu soo kaxaysatay dumarka u jawaabi maayo waa xaraan biga tay mar labaad iyo mar saddexaad aan ku celinay waliba dumarka anu dumarka uma jawaabo waa ceeb weey hablahu ay soo caayaan aniga media ay ugu soo aflagaadeeyaan waa hablaha Soomaaliyeed weey waa hablahaygii weey dad dhaqan labaan anigu hablaha u jawaabi maayo laakiin adiga oo awowgaagii labaad waan kugu celinaya waliba si fiican dhiga u furo habar jeclo marka la maqlo loo fiirso waa ninka awowgiisi labaad la guursaday waa adiga weey yarkeena injineer amiin la yiraahdo wallahi inuu maanta Soomaali caayo oo hawiye caayo oo Gadabursi caayo oo Isaaqa barkii caayo inuu xishoodo gambo inaad gambo xidhatay gambo od niqaam xidhatay oo aamstay laakiin waa laga xishooday anagoo Isaaqa anagoo sidana anagoo Islam anagoo war aadu maxaad Islam iyo Isaaq iyo waxaad ka garanaysaa awowgaaba gar adag lagu guursaday awowgaagii labaad ninka gar adag lagu guursaday maano adiga ahayn Paris ku nool shay sanbeeda reer galbeedku miyaanu ahayn awowgaagii afaraad ninkii la oran jiray Meekal Maryama who you ha bal ummadda Soomaaliyeed baan weydiinana ummadda Soomaaliyeed baan kelmadan dhex dhigayaa Meekal Maryama yuha who is this guy Meekal Maryama yuha wuxuu ninka kaliya ee ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaan diinta Kristanka ninkii qaatay Meekal Maryama isaga awowgiisa saddexaad buu ahaa bal fiirsaada awowgiisa labaad waa la guursado khaniis buu ahaa baad fiirso gar adag way ku soo baxday gartii la qaadi kari waayay baad awowgiisi afaraadna wuxuu ahaa Meekal Maryama ninkii Kristanka ahaa ma adoo noocaasa oo awowgaagii labaadna la guursaday oo gar adag lagu mehersaday oo maantana engineer abiin ummadda loo soo baxay engineer abiin war engineerka miyaanad jaamacada looga soo bixino engineerku maanu wadooyinka iyo electroniga iyo engineerku uu fara badan yahay maanu pilotka iyo kii kale maxayga iyo war civil miyaan engineeradu miyaan ahayn engineeradii looga soo bixi jiray 10 sano engineerka waxa ka soo baxa qofka injineertanka ah ee ruuxantii aqoonyahan xitaa PhD waxan ma engineer marka loo xita dhaqaatiirtii ka aqoon sareeya engineer hebel baa la baxasa taariikh mali engineer hebel markaasaad ummadda Soomaaliyeed media soo galay aflagaadinaysa markaasaad anagoo ku abtirsana ibnu sheekh halka naga soo cayda hariya habeenba markaasaad tiraahdaa anagoo reer Soomaaliland anagoo sidana anagoo reer Soomaaliland ka joogtay markaan anagu dhisanay aniga adeerkay buu ahaa Sheekh Cabdullaahi Shacal Jawhar ninkii Soomaaliland halkeed ku noolayd markii awowyada la mehersanayay ee gar adag lagu mehersanayay markuu awowga Kristanka noqonayay Meekal Maryama awowgaagii labaad halkeed ku noolayd Soomaaliland war Soomaaliland anaga dhibada u taagnay calankan meesha soo dhigatay isku sawirtana hadar ninkada buursiyaa sameeyay malaha waad waalantay ina kaahin ninka la yiraahdo ina gubeedka ah ee maanta arrimaha gudaha jooga ee adeerka iyo wax khuraafaadka
laangaabka magaalada berbere yidhaaha magaalada berberena xitaa annagaa leh dad bilaa taariikh oo maanta taariikh raadinayaa tiignaadeer ayaa waxaan kuu soo qorqoraa anu codadkii baa laga soo diray whatsappkaan hayaa waxaan kala xishoonayaa inay ummaddu kala tagto waxaan ka khajilayaa in ummaddaa maanta meeshaa yare ee xanjadu ugu dhigtay kala tagto calan baad halkaas soo dhigaysa anaga reeshagaalaada xasuuqay yaa ku xasuuqay yaa kaa faqash badnaa nimanka ugu faqash badnaa adeeradaa bay ahaayeen yaa dadka basaasayey yaa siiraanyo yuuhaa miyaanu adeer ka ahayn siiraanyo meel taariikhda baranba meel lagu barinba siiraanyo yuuhaa siiraanyo miyaanu ahayn ninka keliya ee lacag ka dhacay ummadda soomaaliyeed siiraanyo miyaanu ahayn ninka keliya yidhi somali national movement maanu nahay ururka dhaqdhaqaaqa ummadda soomaaliyeed siiraanyo miyaanu ahayn ninka keliya ee ummadda soomaaliyeed baabiyey dadka laayay ee taariikhda ku xusan ma been baad ummadda loo sheegaya taariikhda waanu naqaanaa waanu baranay haddaan waxba lagu dhigin annagu taariikhda taakataakaanu naqaana siiraanyo la carartaa siiraanyo waxa uu ahaa ninka keliya ee duulay ee cararay maalintii esanam lahayd waanu gelaynaa waddanka ninka cararay buu ahaa siiraanyaad sheegaysaa shilimaad uu siyaad baraka cunu agaasimu ahaa agaasimaha maaliyaddu ahaa marna wuxuu noqday wasiir muxuu cararay dadku wax ka cunay dee ummadda soomaaliyeed ba wax ka cunnay adoo noocaasa markaasaad siiraanya calinkan maray war adeer xisho taariikhdaasaad leedahay inaad beelaha gadabuursi ee ummadda gadabuursi ee sharafta kule beelaha gadabuursi inaad caydo ina gubaydnimay kuu tahay wallaahi inaad anigana shakhsiyaddeeda soo caydo ood 2 bilood cay halkaa naagana intaad ii soo kaxayso soo caydo gunnimay kuu tahay laakiin adigu adeerka ahaa awowga ahaa baan u jeedaa halkan ku celinaya adigu awowga ahaa ninkii gar adag lagu mehersaday in hebel ninkii lagu mehersaday awowga gar adag adigu ahaa ninka ummadda soomaaliyeed ugu horreeyay kristan noqdaana adigu adeerka ahaa markaasaad doonaysaa inaad ragga la kaftantood la hadasho markaasaad doonaysaa beelaha habar jecle ee sharafta le inaad nagu dirtood aan kuu cayno hadalka deelqaaf kale ee ruwaanti beelaha habar jecle iga yimid inaadan xanaaq baa iga keenay ninkaasi afkiinu ku hadlaa ma qabataan isma qabataan ilmo jaamac waal baa tihiin ma tidhaahdaan waa ninkaa alcaayasa ka daa iyo reerkooga de adeer haddaadan isqabanaynin habar jecloy de adeer annagoo bahabar cabdallah isma qabana annaguna gadabursi kaleba halkaa idhig annagoo bahabar cabdallah isma qabanno waxaanu naanays iyo magac ku leenahay mana waalna se dadkana maaha bahabar cabdalla ismaba qabataba gadabursi dhexdeedana isqabanba bahabar cabdalla marka haddaad habar jeclo isqaban weydaan oo ina kaahin miidiyaha wax iniga soo qorayo uu leeyahy dadka caaya oo hebel kale dadka caaya oo ummadda caaya oo reeraha caaya oo ummadda soomaaliyeed caaya dee nin walba af baa ku yaalla adaa ugu taariikh xun adaa ugu milga xun adaa ugu ina gubeedsan waa lagaa xishoonayaa mooyaane aad ugu ina gubeedsan wallaahi haddaad sharafta iyo walaaltinimada iyo milgaha ummadda soomaaliyeed garan weydo habar jeclo waxay tahay waanu sheegaynaa wallaahi haddaad isqaban weydaan ka xishoon maynaa ruhaantii in badan baanu dulqaadanay ninkaa kusii intaasaan kaga baxayaa ruhaantii iyona reerkaa reer jaamac waa la idhaa ruhaantii intaasaan kaga baxayaa iyagaa ku suntan nin la guursaday iyagaa ku suntan ninkii kristanka ugu horreeyay ummadda soomaaliyeed ahaa iyagaa ku suntan taa intaasaan kaga baxayaa waxaan leeyahay aan u soo noqonayaa ruhaantii dowlad deegaankaan usoo noqonayaa etoobiya ninka la idhaha mustafa cagjar ee iminka maanta xukunka fadhiya tallaabooyinkii aad ku kacday waktigii aad xukunka qabatay si hoose iyo si dhow baa lagula socday ruhaantii mustafaw saad meesha ku timidena waa la garanaya mustafa cagjarow niyow saraakiil gadabuursiya iyo janaano gadabuursiya oo dowladdii cabdiile ka horreysay iyo tii cabdiileba saraakiil haystay oo deegaankooga maamulanayay maalintii aad xukunka qabatay ee ciidamadan iyo booliska ayaa la yidhi ciidamada onf baa isku biirayaa ayaad ka wada taxday ood ka tirtirtay meesha taa macnaheegu waxay noqonaysaa waxaan la hadlayaa ninka mustafa cagshar la idhaa
taa macnaheedu waxay noqonaysaa inaanad u baahnayn cid ummadda soomaaliyeeda cid wax wada qaybsatay cid wax wada noolaasho lagu wadaaga deegaanka macnaheedu waxaad u baahantahay in dagaal cad lagula galo markaad tidhaahdo ciidamada onanefna hubkii baa laga dhigay iyo ciidamada new police waxay ways galeen waaye new police iyo nimanka la yidhaha onanef waa isku ogaadeen dadkii kale deegaanka ku noolaamee wargada buursaa ciidamadan ku jiray oo saraakiilka ah oo deegaankana dee cashuurta ugu badan bixiyo codna haysta oon cidna aan ka baqayn mustafa run baan kuu sheegay adeere haddaad gadabuursi u haysato inayna cod lahayn inayna cudud lahaynna taa haddaanad ka fiirsan waxay kugu noqonaysaa caqabad saxa bay kugu noqonaysaa oo maanta wiigan soo socda ama laba wadiga uga horreeya aad dareemi doonta ruhaantii 2 weeks aad dareemi doonta way soo socdaa anu waxaan ka hadlaa maaha waxyaabo dee mala awaala iyo xogaan soo baadhaa qofka bil aadankaana inaad iska weerarto waa ina gubeednimo weeye inaad iska weerarto ina gubeednimo qofku hadduu cadaalad darro ku kacayo ama madax ha ahaado ama mijo ha ahaado waa in cadaalad darrada ku kacaya loo sheego weeye adeer gacli taasi waa taa mustafa cagjarow halkaa ciidamada haddaad dib ugu noqon weydo raggii way joogaan 400 oo nin oo hubaysan oo gadabuursiya ayaa hadhiya habeenba deegaanka dhaqaalahooga iyo lacagtoodii haysta ayaana la soo hadla waa bal waa bal ka jooga la wadi maaye war xabadda rida baan leenayniyow ood ummadda gadabuursi godob u sameeya oo dadku hays dilo oo ha la qaxo ama ha lagu jabiyo dee 4 qof baa kaa soo hari doona gobonimaad ku noolaan doontaa ama iyagaad 4 qof ka soo reebi doontaa raganimadu waa taa weeye dad baanu haynaa haddaba 400 oo nin oo hubaysan oo saraakiisha new police ku jiray oo liiska ka saartay oo ugaaskii ku imiday oo liiska loo qoray oo ugaaskii haleeli weeday ugaaska beelaha gadabuursi reportkana waan hayo la isoo gudbiyay mustafa markaasaad nogob iyo deegaanna maxay kale iyo halkan kalaan maraydaa haysaa taasi waa taa ina kaayin waxaan leeyahay ninkayna kaayin la yidhaaho ay maanta somaliland yidhi wasiirka arrimaha gudaha ee baasaboorka jibuutiyaanka wata isbeddelka geeska afrika ka jirana doonaya inuu indhasarcaad ku sameeyo dadka walaalaha ale gadabursigii iyo ciisaha ee mashruuca ka soo qaadanaya weliba jabuuti cidda soo bixinaysan aanu garanno iyo saraakiisha iyo hebel aanu garanno xitaa ismaaciil cumar geelow lug inaad ku leedahay arrimahan socda maanta gadabursi dhexdiisa waa lagu ogsoon waa lagu cadeynaya waranu madaxweynena kama baqno madaxna kama baqno cidna kama baqno ruman ku sheegna ina kaahin hawshan wado waa hawl uu ku mashquulinayo weeyi dadka reer awdal ee asxaabul kaafka ee suurada ku soo degtay asxaabul kaafka ee bari hore seexdayba ee gamay ina kaahino haddaad ummadayda waxaa ka dayn weydo isleeyahay reer awdal way hurdaanay hawsha kuwad dee baasaboorkaagan iyo waxaagan jabuutidan u duulasay waxan dee socon maayaan adeer gaclay rag baa ku jira buuraha nimanka bahabar celin la yidhaaho waa rag tashada weeye qurba iyo dibaddaba dhaqaalaa laga bixiya annagaa bixina xitaa qaadhaanka bahabar celi buurahay ku jirtaa run baan kuu sheegaya wallahi adiga iyo cidda dhaqaalaha ku soo siisay ciidamadaadaba oo la afuufaya niyow dagaalka u soo rari maysid meesha la yidhaahaa awdal u soo rari maysid dagaalku wuxuu ku ekaan doonaa sanaag iyo dhulkaa barigay degto iyo ceelaf weyn hore ceelaf weyn baad habar yunis iyo habar jeclo aad qori dable u dhiibtay hore dhul bahantee ayaad qori dable u kala dhiibto naalaye axmed iyo reer maxay u kala dhiibtay ina kaahino fidmawadeeyo xanaatay filinkaagani socon maayo u soo dhiib baanu ku leenahay ciddaad qori u soo dhiibayso soomaalidu waxay tidhaahdaa ninka guri quraanada ku jira war aanu xil ma hayno adeer gacli run baan kuu sheegayahay dekedana ma hayno manfacna ma hayno musabna ma hayno soo tuurtuur ragga irbadaasaa u gaadhaysay soo tuurtuur markaad soo tuurtuurtana dee ninka guriga quraanada ku jirunba gurigu ka dumayaa ruhaantii daadku ku ekaan maayo dhulka iyaga dhaqaalaha laga qaato united nationka ee magaca lagu qaato somaliland waqooyi isaaq gadabuursi dhulba-aante harti gabooye maxay waxaan igu baabi'i doonaa marka afka la isla galo iyo ciise ruhaantii dhaqaalahaasi
adduunyadu ka goy doonaa halkaad dhaqaale ka keenaysana waa la isweydiin doonaa ina kaahinow markaad dhulbaantana qori dab la dhex dhigto markaad habar yoonis iyo habar jeclana ceelafoyn dab kala dhex dhigto markaad maanta u soo biyeysatee lacag laguu soo dhiibaanu ognay cidda kuu soo dhiibtay ina kaahinowna la yaqaano oo nimanka bahabar celina duulimaad ku tahay la yaqaano weliba cabdiraxmaan siilici ka soo jeedo anuu adeer runtaan ka hadlaadee cabdiraxmaan siilici oo adeer waxaan kuu sheegayaa madaxweyne ku-xigeen baa tahay jamhuuriyadda somaliland baa lagu yidhi dhulkaagiibaa duulimaad lagu yi waxaa la yidhi gawsuhu hoosta ka xidhiirsiin waa inaadna dadkaaga gawsaha hoosta kala xidhsanaato ka etoobiya jooga ka soomaaliya jooga ka cirka jooga ka waxaan ku yidhi meel walba jooga waa inaad siiliciyo tolkaaga aad gawsa hoose waxay ka xidhiirsiin ilkahe aad la socoto dadkani hoose ka wada xidhiirsiin anu xaqiiqadan ka hadlaniyo anu cadaalad darra ma yeelayaniyo haddii la diiday in la sinaado oo la walaaloobo dhulka wax la wada yeesho cadaalad darra lama yeelayo ninka xeebahaaga maanta rasaasta iyo hubka bixinaya waa ninka ina kahin la yidhaa baasabor jabuutiyaan haystaa xagga laga soo maalgelinaya waa xaggaa weeye geeska afrika iyo isbeddelka socdaaba lagu mashquulinayaa reerahan beri hore seexday dee boorame iyo gadabursigan iyo awdal iyo baki iyo meelahan dadkan beri hore seexday laakiin gadabursiga etoobiya ma hurdo ruhaantii ma hurdo dad beri hore seexday buu way soo tooseen oo asxaabulkaaf maalinay soo tooseen dee waa kii ilaahay qur-aanka ku xusay subxaana watacaala saasay dadkani markay soo toosaanna ay u noqonayaan dad taariikhda milga gala ilaahay hana gaadhsiiye waqtigaas inanka ayno haddaad xishoon weydo waa lagu xishoon doonaa haddaad cabsoon weydana waa lagu cabsoon doonaa ruuxaanti masiibadaad wadaana gurigaagu ka dhici doontaa insha allah guri cad adaa ku jira adaa gaari cad wata adaa wasiir arrimo gudaa nin quraarad ku jira waa adiga weeye ragga inaad soo tuurtuurto ood ragga rasaas iskuu dhiibtana la yeeli maayo ruuxaanti la yeeli maayo taasi mid soconaysa maaha mid lagaa yeelayna maaha ina kaahin baan la hadlayaano nin weyn baa tahay snm waxaad ka soo geysatay waa la yaqaanaa dhibaatadii taariikhdaada waa la hayaa maantana waxaa tahay waa lagu garanayaa dagaalkii sokeeye wixii ka dhacayna waa lagu garanayaa maxamed kaahino adeer maxaan been iskuu sheeganaa ninkii tuur la odhan jiray allah naxariista cabdiraxmaan tuur markuu madaxweynaha ka somaliland 1991 labadii sane ku-meelgaadhka ah snm loo dhiibay miyaanad ahayn labadii sane ee snm markii loo dhiibay wasiirka gaashaandhigga miyaad ahayn miyaanad ahayn maxamed kaahino ninkii 8 wasiir yidhi ha la iscasilo miyaanad ahayn ninkii hubka qaatay duurka galay cabdiraxmaan tuur ninkii habar yoonis allah u naxariistee dhintay miyaanad kaa ahayn maxamed adeer miyaanad taariikhdaadu nooca ahayn miyaanad ahayn ninkii diiday ee yidhi dowlad tuur leh na hogaamin mayso miyaanad ahayn ee duurka galay ee habar yoonis diiday miyaanad ahayn ninka keliya iscasilay maalintaas iscasilaysad wasiirka gaashaandhigga ahaydna miyana taariikhda aanad ku qornayn buugtaanu haynaaye kutubtoon la hayaaye maxaad isku casishay maalintaa maxaa kaa dhinnaa miyana ku xumaynahayn ummadda reer somaliland miyana ku xumaynahayn dagaalo sokeeya dhacaan miyaanad ahayn ninka hormoodka ka ahaa beelabeelaha inay isku dilaan isaaqu miyaanad hormoodka ka ahayn miyaanaan ahayn raggii daweeyey in beelabeela isaaqu isku dilaan miyaanaan ahayn raggii gogosha u fidiyey isaaq markuu gogasha isdilaya beelabeelaha isku dilayaan boram ugu fidinay haddaad taa ilowday ood noqotay inan gubeed taariikhdaadoo tafatiran baa lagu saarayaa ina kaahinow lagaa yeeli maayo maanta inaad ciise iyo beelaha maxal case weliba gaar ahaan baabar celi isku dirto lagaa yeeli maayo oo jabuutina lacag ka soo qaadata ruuxaanti adoo shalay iscasilo wasiirka gaashaandhigga ahaa markuu cabdiraxmaan noolaa allah u naxariista cabdiraxmaan tuur oo yidhi dowlad tuurna dooli mayno oo 8 wasiirna isla kaa casileyn oo dowladdiisaa ku baabiyo dumiyey intaanad markaa maantaas casishayna ninka qoriga qaatay ee gaadhiga fuulayna ina kaahin buu ahaa adigu haya maxamed kaahino adeer waxaan been iskugu sheegaynaa dadku waa beela weeye beelaha midoobaynayo beelahaynu iskugu nimidnay beelahaynu ku midownay maaha inaynu khuraafaad iyo cid walba taariikhdeeda waa lahaya oo la qoraya adeer gacli oo la qoraya beenta iyaynaan isku sheegin adaa qoriga maalintaa fuulay adaa yidhi dooni maayo dowlad tuur leh cabdiraxmaan tuurna dooli maayo wasiirka gaashaandhigga adoo haysta oo ina waxba kaa maqnayn diiday maanta annagoo bilaa wasiiraa bilaa agaasimaa bilaa dekada bilaa madaaraa kibirka noo kaa keenaya ee lacagtana lagu kaa soo dhiibayo ee lagu leeyahy nimankani waa niman halis soo waxbartay ee suuxi adeeryaa kaa yeelaya lagaa yeeli maa laa
taasaan kaga baxaya ninkaaniyo kusii fogaan maayo taariikhdii Soomaaliya fiidiyoodii baan hayaa xitaa wallaahi oo billaahi oo tallaahi xitaa fiidiyoodii baan hayaa fiidiyoogii baan hayaa taa kusii fogaan maayo ninka gadabuursiga waxaan la hadlayaa haddaba ina gubeedka waxaan la hadlayaa gadabuursiga beedhe qaataha baan la hadlayaa waxaan la hadlayaa gadabuursiga u haystaba arsaaqadu in bil aadan loo soo mariyo war ilaahay arsaaqada hadduu cid ugu dhiibayo adduunyadan ilaahay kuma idhaahaynba arrasaaq baan hay arrasaaq magacaa muu ilaahay 99 magac buu leeyahay magaciisa kumuu soo dareenba arrasaaq baan hay arrasaaq gadabuursiga arsaaqada bil aadan iyo jiniyiisa cid u haysaa ma jirto iska daaya kaba qaadnimada iska daaya dhulkiinii iyo dekadihiinii iyo masabximada bal ilaah baan ku dhaarsheeyay habar cafaan oo dhan ayaa kula wasiirka beeraha haysanaa wasiirka beeraha muxuu qabtaa bal maxad cas oo dhan bal makaahil oo dhan waa bal ilaah baan bal reer jufa keliya ayaa ka badan oo ina adeero bal maxaad ku hadli doontaa waa kan boqolkiiba 5 baad ka tahay baa lagu yiri Soomaaliland man ragga waxaa dhageysanayaa way sixriin malahaniyo allah inaga dulqaada allah anu cidna duulimaad kuma yi laakiin adeer cadaalad iyo sinaan baa laga hadlayaa wixii shalay toole laga yeeli waayay dawladaha ka jira dunida wixii shalay toole laga yeeli waayay Mussolini Bertolini ninka la yiraahdo Talyaaniga Benito Mussolini baa iyo Hitler wixii shalay Fircoon laga yeeli waayay wixii laga yeeli waayay dhirgagii wixii taariikhda dunida soo martay intii mucaanka ahay laga yeeli waayay ilaa siyaad bara ku dar maanta in la yeelo gadabuursi diyaar ma salaadinta waxaan leeyahay adeeraad nootiin salaadinteedina waatiin aflagaadana nagama geedaan milga darana iyo nusqaan darro iyo saad service iyo maalimiin aad noolaato waxa ka qurux badan adoo gaajo u dhinta nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay risaalada u soo dhiibay ayaa gaajo dhexda u xidhay gaajo oo dhagax dhexda ku xidhay waa khayr khalqullah way bal hadoo fiirso waa khayr khalqullah والنبي محمد عليه الصلاة والسلام أيا قاعد شرح هذا حكوا حداي وإلهي محبوب واي وإلهي مرة قريشات بكو أرساق واي معالم بكو أرساق واي بقرطو يديسا يملقيه سيقس نديسو كأرساق واي جوابت واميوي هدف بولها هدانت صلادين تيدو إني هدف لهين أنا قمان تلقى بلابا سلطاني مثلا مجرو كذا بورسيغا نيعدا ينيعدا يسيغو يساركيانا ديغو تالا عيد الصلادين اي كدغانيان روانتي انا سلطاني مثلا اما انغا سلطان مثلا او كذا بورسي ما جيرا روانتي muxuu igu matala suldaanku wuxuu igu matala dhaqan wuxuu igu matala suldaanku siyaasad wuxuu igu matala suldaanku iyo inaan meel marka la wada fadhiisto u dhaha yeelimayna waxa intaas suldaan baad aragto hadla oo dhaha yeelimayno meel walba yeelimayno ummadda Soomaaliyeed oo dhan Soomaaliya oo dhan markay burburtay ilaa 19 ilaa maanta salaadiin baa abuurmay ma yeelinu beedaan wuxuu gani waa loo gooyaa salaadiintayadu مي سحرين مي والين حتى بهذا السلطان كاغو سحرين اما سلادين تقدر برسي سحرين لان يرد قدر برسي وحبرتي بي اتش دي غلي اقويهان كله ما انت دوني ان دكدها مامولان ما انت دوني ان مدح نقدان يا هورتاغن hadii madax la dooranayo sultaankii baa gacanta ku qabanaya sultaanku haduu inankiisii geystay oo wasiir ka dhigtay sultaanku haduu inankiisii scholarship samaystay suldaanku hadii inankiisii saad loo soo dirayo oo qoyskiisii ka fur yeelay maxaa ka galay gada bursi maxaa ka galay inuu wax bartay maxaa ka galay adeer hadayna saagada burso fikreen dhaxdiinu dagaal ka dhacaya taa ogsoonaada gada burso wala kala bixi doona waxa loo kala bixi doona ninka baqaado dhulkiisa lagu haysto oo gada bursiya oo xeebihiisa lagu haysto rumays ku sheeganay كذا بورسي لو هايستو ان محل عصاهيني تاريخ لما هي 2019 nimanka ceer bardaale ku dagaalamay niman reer nuur ay haayeen aan runta ka hadlaniyo ceer bardaale reer nuur bay istifaacay dhulka ku dagaalamay كذا buursi maanta dhulkiisa muran ku jira waa maxal casawi ama xeeb ha noqoto ama ha noqoto meesha ceel sheekh la yiraahdo كذا buursi dusha isku masito hadda leediin maxal casaw talbaynu nahay ilmaadeerayaalow dhulkaygoona lagu haystaa laantan iyo waxaan waana lagu sixray
cabdiraxmaan siilici hawl fiican buu wadaa horta ninkaanu cabdiraxmaan siilici kuma degdegay adeerkay tol buu waayey gadabuursi waayey cabdiraxmaan siilici fariin baan u dirayaa niyo cabdiraxmaan oo adeer waxaan ku leeyahay haddaad tolkaa isku soo ururi weydo maanta ood la hadli weydo ood guddiye u samayn weydo madaxweyne ku-xigeen baatay nin walba hawshiisu wataa muuse bixiba hawshiisu wataa ninka la idhaaho saleybaan gaal waa arrimaha waxa weeye ninka guurtida haysta haddana habar jecliya hawlihiisu wataa cabdiraxmaan oo adna adeer haddaad hawshaada wadan weydo oo dadkaaga aad odhan weydo waa niman yahow hawlahan aynagu furane bal guddiye waxaynu samaynao dhulkeenna oo salaadiin caaqilo qaylin waayaan hadli waayaan wax dili waayaan istifaaci waayaan de horta dhulka maxad casaa laga qaadayaaye habar cafaan iyo makaahil lagu duulayaa ma jirto run bayn isku sheegaynaa gadabursada cidda duulimaadka lagu yihi waxa weeye waa dadkaa tolkeena weeyi maxad casow niman weligiinba dhiig labaad ahaydeen maxad case waxaa la yidhi madax dhiig laga waayey waa maxay ficil laga waayey baa la yidhaa ruhaanti ilmaadeerayaalow yeenaan eegan maanta waxa maanta taagan hadduu adeerkaa yahay iyo hadduu suldaankaaga yahay iyo hadduu suldaankayga yahayba ha ka yeelin taaka intaa leego nusqaan daraa waxa ku xidhan adiga awowgaa ku xidhan ragga la kaftami maysid ummadda soomaaliyeed meel la soo fadhiisan maysid cid inangubeed baad noqon doontaa cid aad la kaftami doontaa maanta ma jirto maanta oo 2019 ayaanu dhalinyarada gadabuursi ma kaftami karaan wallaahi oo billaahi nin gadabuursiya oo dhalinyarada wax barataya oo maanta kaftami karaa ma jiro waana runtood yaa dabarkay nigu xidhay nin suldaana ayaa dabarkay nii xidhay waxa dabarkay nii xidhay oo carruurtiisii ka fuur yeelay wasiir hebel iigee dhaqaale iyagaa tujaareeyey 3 qof ma 3 qof suldaan iyo wasiir iyo inamadiisii scholarship geystay waa 3 qof weeye ma 3 qof baa gadabuursooni kafayn karaa jawaabta qof kastoo caqli leh uu garanayaa niyo aan runtan ka hadlaa haddaad gadabuurso dib iskugu noqon weydaan gadabuurso waxaan arkaa taariikhdiisa ku faan waayey dib baan u dhiganayaa tolkay ku fogaan maayo ummadda soomaaliyeedna waxaan leeyahay milge iyo sharaf baan noo haynaa haddaan nahay meelaha gadabuursi isaaq laftiisa waxba nagama dhexeeyaane deegaan iyo waxbaan isku darsanay 19 wixii qalloocdayna dee qalad baa lagu saxayaa waxaa la yidhi qalad lagu saxaa haddaad maanta miidiyaha soo fadhiisato oo tiraahdo anoo reer somaliland oo calanka sameeyey oo heesta calanka sameeyey oo reer somaliland oo gadabuursiya waxaa lagu odhanayaa qarandumis baatay faqash baatay daahir yaalaa faqash lagu laashalay marka macnaheegu waxa weeye qalad lagu saxayaa niyo haddaanad qalad ku sixinna adduunyada kusii noolaan maysa ruhaanti waa inaad qalad ku saxdaan waa inaanad suldaan dhegaysan waa inaanad cidna dhegaysan waa inaad maanta 30 jir baatay 40 jir baatay waa inaad mustaqbalkiina ka talisaan ilma adeerayaalow haddaad ka talin weydaanna war anigu wax allii waxaan u baahanay maanta ma jirto alxamdulillah baan ku jiraa waan shaqaystaa sharci baan haystaa britisha meeshaan doona ka duuli karaa meeshaan doona tegi karaa laakiin waxaan u dagaalamayaa anigu carruurtaan dhalay bahabar cabdallah u dagaalamaya ruma nii sheegay gadabuursina waa sii kala tegi doonaa bahabar cabdallah meel bay taariikhda baal kaga qornaa doontaa ana u talinaya carruurtaan dhalay bahabar cabdallah sharaf iyo milgeena ku noolaan doonaan fiidiyoogana youtube ku gali doonaa carruurtaan awowga u hayna way daawan doonaan markaasaa la odhan doonaa awow hebelkaygii ninkii sidaa u hadli jiray buu ahaa awowgay ninkii saa u hadli jiray buu ahaa anigu awow markaan noqdo ninka saa u baanaya ee laabta saa u qaraacanaya noqon doonaa ee runta saa uga hadlaya ruhaanti taariikh xumo ka degi maayo haddaan dhinto maanta anu carruurtayda sharaf iyo cisi baan uga tegi doonaa ruhaanti iyo xiniyo iyo inaan u hadlo intaasaan niga tegayaa gadabuursi waan isku soo noqonnaa barnaamijyo gaara wallah waana la kala baxaya insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu jawaabahaasina waa jawaabo aniga iga kasbadeen weeye waa jawaabo aniga layga kasbaday oo layga soo saaray weeye waa jawaabo aanan doonayn inaan weliba u jawaabay nimadaa yaree baalashlayaasha ah ee miidiyaha ka qayliya ee ina kaahin lacagta siiyo ee uu idhaa dadka caaya ee aflagaadeeya shakhsiyaddooda caaya adeer qaniya kaa goysa qof kasta oo miidiyaha iga soo caaya
أما قد بورسي هذا أما إساق هذا أما الصومالي هذا أما أورما هذا أما عنفر هذا أما أمحاري هذا أنيقو أفكيغان اسكو دفاعي وانا سوق ليا مو شيخ هذا شيخ والله نيكي اسكو دفاعي أفكي سنة والله انتا سو كن أو قبي انتا سو كن أو تاريخنا والهيا نبت قلينية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته